Salaam calaykum. Beri waxaa jiri jiray laba caruura oo ahaa wiil iyo gabadh. Aabahood waxa uu ahaa odaygan, waxayna ahayn caruur aad iyo aad u caqli badan. Markii hooyadood dhimatay, aabahood waxa uu guursaday xaas labaad. Aabahoodna waqti ayuu la qaadan jiray, waa uuna jeclaa. Xaaskan waa xaaskii aabahood qabay. Islaantani ma jecla caruurta, waxayna leedahay maalin baan idin shirqooli doonaa. Caruurtu waxay ku ciyaarayaan qolkooda, balse eedadood waxay aabahood ku leedahay, aniga caruurtan maskaxda ayay iga cuneen, waxaan rabaa in aan meel duura geeyo isla markaasna ka soo baxsado. Balse waa uu la yaabay aabihii markii uu maqlay hadalkii, waa uuna naxay. Waxa uu ku yidhi, miyaad ilowsantahay caruurtan inaan anigu dhalay? Balse waa iska aamustay iyadoo niyadda ku dhisanaysa, adigoon u sheegin ayaad kaxayn doontaa. Halkaas waxaa ka dhagaysanayay Axmed Yare oo ahaa wiilkii aqliga badnaa. Waxa uuna maqlay qorshaha ay u degayso eedadood. Axmed waxa uu yidhi, aniguna waa inaan qorshe degaa. Habeennimadii waxa uu u soo baxay bannaanka, isla markaasna waxa uu gurtay dhagaxaan yara iftiimaya amaba yara dhalaalaya. Waxa uuna rabaa dhagaxaantan inuu hadhow toole ka soo dhigto tilmaan marka ay eedadood kaga timaado duurka. Subaxdii waagii markii uu bariyay, aabahood waa uu shaqo tegay. Caruurtii eedadoodii arxanka tarnaydna waa ay soo kaxaysay caruurtii iyada oo ku leh, waan idin soo dalxiisinayaa. Balse Axmed waxa uu sameeyey dhagaxaantii inuu waddada ku daadiyo si uu markaasi hadhow tilmaan uga soo dhigto. Waxa ay keentay eedadood meel cidla ah oo ayna cidna joogin. Waxayna ku tidhi, caruurtaydii meeshan quruxda badan leh ayaan idiin keenay inaad ku dalxiistaan. Waxaanan halkan idinka soo gadayaa alaabaad markaasi ku ciyaartaan. Halkan igu sii suga. Balse Axmed waa uu fahansanaa, sidii ayayna ku tagtay aayadood ama eedadood, kuma ayna soo noqon. Waxa ay noqotay habeen. Habeenkii markii ay noqotay ayaan waa ay naxday. Axmed ayaa dhiirigelinayay kuna yidhi, aniga ayaa qorshe degay, gurigana waan ku laaban doonaa. Waxa uuna tilmaam ka soo dhigtay dhagaxaantii waddada ku daadiyey, isla markaasna uu soo raacay. Gurigoodiina sidii ayay ku soo heleen oo ay ku yimaadeen. Waa ayna soo gargaraaceen albaabkii. Eedadood ayaa albaabka ku furtay, waxayna tiri, yaa ma dhici karto, kuwan maxaa igu soo celiyey? Habeennimadii waxa ay siisay casho. Waxa ayna tiri, waa in aan idin geeyaa meel aydan ka soo noqonin oo aad iyo aad u fog. Waxayna ku tiri, caruurey isdiyaariya, waxaan idin geynayaa meel aan ku soo dalxiisno oo aad iyo aad u qurux badan. Waxaanan qaadanay cuntadii iyo rootidii aan markaasi sahayda ka dhigan lahayn oo aan cuni lahayn markii aynu halkaasi tagno. Waa ay soo kaxaysay eedadood, balse ayaan iyo Axmed waa ay fahansanaayeen eedadood sababta ka dambaysa inay soo kaxayso, rabtana inay kaga soo baxsato duurka. Balse Axmed waxa uu sameeyey, rootidii ayuu dhulka ku daadaadiyey si uu hadhow toole uga soo dhigto tilmaan. Balse nasiib darro, roodhidii waxaa cunay shimbiro gaajaysan. waa ayna ka qaadeen meeshii. Eedadoodiina waxay kaga timiday meeshii cidlada ahayd ee duurka ahayd. Markii ay isdhaheen, waxaan ku laabanaynaa gurigii, waxa uu yidhi Axmed, aniga ayaa qorshe degay, roodhidiina waxaan ku daadiyey dhulka. Balse markii ay waddadii soo mareen, Axmed iyo ayaan waxa ay ka waayeen rootidii. Waxay arkeen guri aad iyo aad u qurux badan, isla markaasna gebigiisuba ka samaysan waxyaalo dhalaalaya. Gurigii ayay soo galeen. Gurigii markii ay soo galeen gudihiisa, waxay ku arkeen waxyaalo macmacaana oo ka buuxa gurigii. waa ay iska cuneen iyagoo aad iyo aad ugu faraxsan nanacan iyo macmacaankan ay ka heleen guriga. balse Axmed iyo ayaan warka ma ahayn cidda iskale gurigan, waxaana iska lahayd saaxiradii dadka cuni jirtay. waxay ku tiri, caruurey aniga ayaa gurigan iskale, maxaad ka soo doonteen halkan? Caruurtiina waa ay naxeen. hal marna waxa ay u yimaadeen oo ay soo wada eegeen islaantii. balse islaantii weji xun ma ayna tusin caruurtii oo waa ay soo dhaweysay. albaabkiina waa ay ku xidhatay. albaabkii markay xidhatay, caruurtii waa
waa isku naxeen iyaga oo markaasi labadoodiiba anfariiray. islaantii waxa ay tidhi, waan idin karsanayaa, waanan idin cunayaa. sixirkeedii ayaa waxay ku xidhxidhay Axmed iyada oo markaasi ku dhex riday shabaq. saaxiradii dadka cuni jirta waxa ay dabka saaratay biyo ay markaasi ku karkarsato caruurtan, isla markaasna si ay u cunto ay ugu diyaarsato cunto. balse waxa ay ku fikirtay ayaan in ay biyahan karkaraya ku dhex rido islaantan saaxirada ah. islaantii ayay xagga dambe ka soo martay iyada oo isku dayday inay ku dhex rido biyihii kululaa. biyihii markii ay ku riday ayaan, sixirkii waa uu ka buray islaantii, halkii ayayna ku dhimatay. sixirkiina waa uu ka soo baxay Axmed yare oo waxa uu noqday xor markaasi shabaqii ka baxay. waxa ay arkeen dahabkii sixirada oo aad iyo aad u badan, isla markaasna gurigii dhex yaala. waxa ay ka qaateen waxoogaa iska badan oo aan ahayn dahabkii oo dhan, waxayna soo heleen ugu dambayn gurigoodii. aabahood markii uu arkay caruurtii waa uu ku farxay, wuxuuna yidhi, caruurtaydii halkeed iga tagteen? balse ma ayna sheegin caruurtii. islaantii aayada u ahayd ama eedadana waa isku qatishay, waxayna ka dalbatay cafis, waxayna siiyeen aabahood dahabkii. waxay ahaayeen maalinkaa wixii ka dambeeyey faamilkii oo dhan kuwo farxad ku nool.